raalli ka ahaada waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo Axmed Faari Cali Daaja uu inoo soo gudbin doono dabcan isla idaacadda ayaad ku maqli doontaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan nabadoono erga ah oo gaadhay deegaanka koonfurta gobolka Sool si ay u xaliyaan xiisadii ka dhacday deegaankaasi dhumay qodobadaasi iyo kuwa kale aad maqli doontaan marka hore warkii caalamka ciidanka baadhaya weerarkii ka dhacay macbad ay yuhuuddu leedahay oo ku yaala magaalada Pittsburgh gobolka Pennsylvania dalka Maraykanka kaasoo ay ku dhinteen 11 qof ayaa weerarkaasi ku sheegay dembi nacayb ku salaysan maamulka ayaa sheegay in qofkii weerarka soo qaaday uu ku dhawaaqayay eray yuhuudda lagaga soo horjeedo markii uu rasaasta ridayay waraaqihii dacwadda laga qoray ayaa sheegayay in Robert Gregory Bowes oo ah ninka weerarka geystay isla markaana ku hubaysnaa qoriga AR-15 iyo bambagacmeedyo uu doonayay yuhuudda oo dhammi inay dhintaan isla markaasna ay yuhuuddu gumaad ku hayso dadkiisa sidoo hadalka u dhigay ninkaas ayaa taas uga jeeday sida hay-ad dib u dejinta oo yuhuudda Maraykanku ay leedahay ay u kaalmayso dadka ajnabiga ah ee Maraykanka imanaya fariin sida cad uu baraha bulshada ku qoray daqiiqada ka hor weerarka ayaa Bowes 46 jir ah uu ku sheegay in hay-adda oo lagu magacaabo Hebrew Immigration Aid Agency ay jeceshahay inay dalka keento kuwa soo duulaya oo iyagu dadkayaga dilaya sida uu fariintiisa ku qoray waxa uu intaasi raaciyay ma sugi karo in dadkayga la gowraco warbaahinta oo soo xiganaysa saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in ninkii maalinimadii jimcihii lagu eedeeyay isla markaana loo xidhay in uu diray 13 xidhmo oo ay ku jiraan walxaha qarxa isla markaana uu u diray dad ka soo horjeeda fikir ahaan madaxweyne Donald Trump la filayo inuu markii ugu horeysay ka soo muuqdo ama la horgeeyo maxkamad sarkaal ciidamada ammaanka ka tirsan ayaa CBS News u sheegay in Cesar Sayok oo daadiisu ay tahay 56 jir isla markaana degan Florida in la filayo in maxkamad la hor keeno maalinta Isniinta halka sidoo kalena telefishinka CNBC uu sheegay in ninkaasi uu hor iman doono maxkamadda heer federaal oo ku taala Miami dhinaca kale wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa iyaduna soo xiganaysa hay'adaha ammaanka ayaa sheegtay in uu maxkamadda hor iman doono ku taala Florida kadib marka dacwada lagaga soo ogo maxkamad iyaduna heer federaal oo ku taala New York oo ahayd magaaladii 5 ka mid ah 12 xidhmo oo la diray xilligaasi laga helay ama lagu qabtay laba ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay qaar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii laba weerar oo kala duwan ay ka dhaceen dalkaasi bayaan ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali oo loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in kooxo ku hubeysan hubka darandooriga u dhacay madaafiic ay weerareen saldhig ay ciidankoodu ku leeyihiin gobolka Timbuktu labada askari ee ku dhintay weerarka ayaa ka mid ahaa ciidamada dalka Burkina Faso ee qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali weerar kale oo ka dhacay deegaanka Konna ee gobolka Mopti ayaa waxaa ku dhaawacmay ciidamo ka socda dalka Togo oo ka tirsan nabad ilaalinta qaramada midoobay kadib markii bam lala beegsaday kolonyo ay ciidamadu la socdeen ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay dadka codbixiyaasha ah ee waddanka Brazil ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo waddankaasi yeesho dadka la socda arrimaha doorashada waddankaasi ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in la soo doorto musharax ka mid ah dadka aaminsan mabda'a midigta fog halka dadka ka soo horjeeda ninka musharaxiina ay sheegayaan in haddii la doorto ay halis gelin karto arrintaasi mid ka mid ah wadamada arrimaha dimuqraadiyadda ugu waaweyn leh Jair Bolsonaro oo xubin ka mid ah Congress-ka waddankaasi Brazil ayaa hogaaminaya doorashadaasi maanta iyadoo ninkan la tilmaamay inuu leeyahay doodo iyo weliba aragtiyo muran dhaliya isla markaana lagu tilmaamo Trumpka kulul Bolsonaro oo hore kabtan uga soo ahaa ciidamada waddankaasi Brazil ayaa lagu dhaleeceeyaa inuu qayb ka ahaado isla markaana uu ka soo noqday xukunkii dictatorka ahaa ee waddankaasi ka talinayay sanadihii 1964 ilaa 85 iyo weliba faallooyin uu ka bixiyey dadka madow iyo weliba haweenka
kale dhegeystayaal waxaanu idin leenahay fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba ganacsiga Soomaaliya uu la leeyahay dalalka kale caalamka ayaa u baahan dheelitir iyo weliba isdhaafsi ganacsi iyo weliba hubin lagu sameeyo alaabooyinka ganacsiga ee waddanka Soomaaliya ee maraya dhawaantan waxaa jirtay burburin lagu sameeyo kontiinaro khamri ah oo ka soo degay dekedda magaalada Muqdisho haddaba dhammaan arrimahaasi ayaa waxaa ugu warramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan oo haatanba stuudiyaha ugu wehdiya wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ugu horeyn baa ku horumarno wasiirku isagoo ka hadlaya isxilqaana dhinaca nadaafadda ah oo maanta uu ka sameeyay wasaaraddiisa maanta waxaanu samaynay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaanu ka bilownay inaanu meeshii jabana dhisno oo hagaajino isla markaana wajahadeeda iyo laamiga hormara intii aanu ka gaarnay maanta ilaa 500 oo tallaabo oo laamiga labadiisa dhinaca wixii qashin ah yaalla inaanu ka qaadno oo waxaana noo qorshaysan sida qorshuhu yahay inaanu ridda wajahada wasaaradda iyo laamiga ay u fadhido aanu ubaxayno oo meel quruxsan oo caasimadaha caalamka la mida ka waan gartay marka wasaaradaha kale iyagu weli ma bilaabeen oo ma hawshan ma mid la bilaabay ma tahay mise idinka ugu horreeya dabcan maanta annaka ugu horreyna laakiin waa qorshe jira oo istilqaan la dhaho oo dalka oo dhan laga bilaabo caasimadda oo hadda dawladda dhexe fadhido laakiin dalka oo dhan laga hirgelin doono lagu amri doono inay maaragtay dalkeenna inakaa burburino aynu dib u dhisno oo adduunka soo gaarsiino lagu amri doono gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo waktigiisa qayb ka mida inuu siiyo dalkiisa inuu quruxsado dalkiisa inuu dib u dhisto dawladdu ay taageerto wixii taageera ay bixin karto ay bixiso sida haddaba socota in dib loo dayactiro oo la dhiso tiyaatarkii iyo madxafkii qaranka iyo maktabadii qaranka iyo cusbitaallo oo reedi ay bilaabatay hawshoodii marka waa barnaamij qaran oo dalka dib loogu dhisayo waan gartay maalmo dhaweyd waxaa jiray in dekedda magaalada Muqdisho ay ka soo degtay shixnado khamriya daroogooyin kalena waa lagu sheegayaa magaalada dabcan waa magaalo dib u soo kabanaysa hadda bal arrintaa waxaad naga siisaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha yimaada khatarta ay bulshada ku hayaan iyo sida wasaaraddaadu maadaama ay tagta ganacsiga ay uga gaashaamanayso aad iyo aad baad u mahadsantahay horta adeer si aad la socoto dalkeenu muddo badan ayuu burbursanaa muddo badan ayuu u ahaa warshadaha adduunka meelay qashin qub u ah ama ha noqoto wax caafimaadka dadka wax u dhimaya si kastay tahayba ama waxa la cuno ee maaragtay dhacayo quality-goodii iyo tayadoodii aan cidi controlaynin marka hadda runtii waxaa bilowday in wasaaradaha ganacsiga ee heer federaal iyo heer maamul goboleed aanu ka wada hadalno sidii maaragtay dalka loogu samayn lahaa quality control ama taya dhowr loogu samayn lahaa sidii waxyaalaha dalka soo gelaya tayadooda loo ogaan lahaa waa sax maalin dhaweed waxaanu ku qabanay dekedda Muqdisho maaragtay container uu ku jiro khamri laakiin alaabooyin kale lasoo dhexgeliyey oo loogu talagalay in lagu qariyo sidoo kale waxyaalo badan oo darooga ah ayaa jira oo dalka si sharci darraa kusoo gala dhawaan uu ka mid yahay tubaako laga keeno hindiyo taabuu la dhaho oo dhalinyarta hadda jaamacadaha dhigata iyo kuwa iskuullada dhigtaa aad u isticmaalaan oo golaha wasiirada qaybta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada labadaba looga hadlay oo aanu hadda doonayno gobolka banaadirna sidoo kale looga hadlay oo aanu doonayno inaanu ka soo saarno shuruuc dhawaan wasaaraddeedu waxay dhistay hay-addii taya dhowrka Soomaaliyeed oo ah hay-adda ay ahayd inay maaragtay dugulay garayso ama kontaroosho waxyaalaha dalka soo gelaya islamarkaana standard la og yahay oo alaabta Soomaaliya imaanaysa standard ay ku timaado u samayso marka golaha wasiirada ee hortaala waxaan rajaynayaa in maaragtay maalmaha iyo wiilka soo socda la ansixiyo waan gartay marka iyaduna ay shaqadeedu u qabsan waan gartay marka dawlad ahaan dalka waxaa ka bilowday in maaragtay dareenkaasi aanu hadda abuurno oo dalka Soomaaliyeed laga joojiyo dadka Soomaaliyeed waxa caafimaadkooda wax u dhimaya ee aan tayada lahayn baa soo socota dekedaha Soomaaliya uga soo degaan oo dhan la gaarsiin doonaa insha Allah waan gartay taasi waa dhinacii daroogada iyo khamriga hase yeeshee waxaa sidoo kale jira in ganacsada qaarkood ay keenaan dawooyin dhacay cuntooyin xilligoodii dhow yahay amaba in dalalka Asia oo China ugu horreysa laga keeno qalabkan electroniga ah oo tayadiisu hooseyso lacag fara badan oo lacagta adaga ayaa Soomaaliya kaga baxda marka waddanka la keeno waxyaabahaasi caafimaadka qofka iyo deegaankaba khatar bay ku yihiin arrimahaas
maxaa idinka qorshaysan waxaa nooga qorshaysan marka ugu horreysa inaanu dhisno hay-addii tayadhowrka soomaaliyeed oo sida adduunka kale oo dhan ah hay-ad mas-uulka ah inay keento xeerarkii iyo shuruucdii wixii soomaaliya horu lahaydna soo qaadato wixii kale adduunku intaanu burbursanayn un gaarina ku darto inaan hay-addaa dhisno hay-addaa waa dhisnay wasaaradda ganacsiga waxay hortaallaa golaha wasiirada waxaana mas-uuliyad naga saaran tahay inaanu keenno standard la og yahay ama heer la og yahay oo waxyaalaha soomaaliya soo gelaya iyadooda lagu kontroolo sida east african standard oo kale inaanu keenno iyo inaanu ganacsatada soomaaliyeed ku wacyigelino ciqaabta ka dhalan karta inay dalkan keenaan alaab dhacday ama daawo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama alaab dhismo ha noqoto ama qalabka electroniga ha noqoto wax kasta kuwaa la siday leeyihiin sidoo kale dalkeena soomaaliya waxyaalaha dhibaatada ku ah dalkeenu wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag marka xagga ganacsiga la fiiriyo taasoo ah in dhammaan wadamada aan la ganacsano oo ka badan soomaalidu wax ka soo gadato ka badan 30 wadan marka sacuudi carabiga laga reebo hal wadan inta kale oo dhan inaanu kaga jirno dheelitir la-aan ganacsi ama trade deficit aan kaga jirno oo dhaqaale xoogii naga baxayo iyagoo aan iyagu waxba naga gadanayn oo malaydii gadanayn oo hidibkii soomaaliyeed gadanayn oo khudaartii soomaaliyeed gadanayn waxba naga gadanayn marka taasna daryahan dambe wada hadal baynu kaga jirnay dhammaan dawladaha ay ugu horeeyaan turki iyo Ethiopia iyo Kenya sidoo kale ganacsiga Soomaaliya waxaa dhibaato ku haya ganacsiga baasaboorka ajnabiga maadaama Soomaalidu qaxday oo meel kasta ka qaxday ganacsigadeeda dhan waxay haysataa baasaboorka ajnabiga oo Ethiopian leh oo Djiboutian leh oo Maraykan leh oo Kenyan leh kuwaas ku ganacsadaan taasoo keenaysa inaan wadanka ay wax ka gateen u aqoonsanayn in Soomaaliya wax ka gado marka iyadana waxaan ka wadnaa shuruuc iyo nidaam waagaag dhegaystayaal kaasi waxaa wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Saldere fiid wanaagsan markale dhegeystayaal haatanna gobolka Sool waxaa deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool gaadhay ergooyin ka tagay magaalada Laascaanood waa magaalooyinka Laascaanood Garowe iyo Buuhoodle si loo kala qaboojiyo laba beelood oo halkaasi ay colaadii ugu dhaxayso Garaad Saleebaan Buraale aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha ay dirirtu u dhaxayso ayaa wariyahana Cabdikariim Olol uga waramay xaaladda colaadda iyo gogosha ay u fidiyeen labada beelood كان يذكر مسيرين كذا ما يحضر لك عن كذا لا يوم نبات كيني هل كان مننا واحد واحد كتاك هذا ما نقول ما شفته وقت مركا وفتيرة نبضين هلكا كنت مادين هلكا كثرت مادين انت هلكا اسكسو قادين مركا ذلك يلا ذلك كتني يلا تعانوت يجوز لا تعانوت يجوز كائن هلكا نقول ما يمانتو كذا كرتنا marka deegaanka haatan joogtaan teedo jira deegaanada lagu dagaalamay ee dhumay وما kala bayaan dhaxsalina waa la nixkala masiir jirnaa xaaladda deegaankaasi iyo haatan siduu yahay socod dheer aad ku soo marteen deegaanadaas iyo colaadda halkaasi ka dhacday xaaladdu hadda sidee bay tahay walaa xaaladda wixii hore dhacay hadda looga warayaa inta ay gashay weliban waa ka waraysaa wax la soo hadda ka dhacayna ma jiraan laakiin deegaanka inta wax dhici karaan waayo dadku deegaanka heshiin waa hadda ugu kayda weynaan u heelanayna waxa weeye hay'aduhu inay soo gaaraan afar tuulada laga baxay dadkii maatada ahaa wuxuu tugan yahay kaaman iyo dhul hoosteed marka in loo soo gurmado ayaanu aad ugu boorinaynaa waxdaale waxay haystaanna ma jirto iyo hooy iyo tagool iyo cunto midna qodobka labaad waxa weeye qodobkii amniga sidii buu isla daba taagan yahay waxaanu ugu baaqaynaa inaan waaleyntaan xiriir la samaynay balanka haddayna yimaadaan annana waa joognay oo kuga dhignay iyana inay yimaadaan si hawsha insha allahu looga buuxsado loona aftaro deegaanada dadku ay ka qaxeen aad aragteen iyo deegaanka dhagax isku guro ay hadda joogtaan bal nooga waran dadku waxay ka qaxeen marka laga soo bilaabo dalkeyn ciidan mooye dad ma joogo dabataag waa laga qaxay dadku dabadii ku maqanay maatadii waa ciidamaha jooga dhumay ciidamaha jooga waa laga qaxay marka dadka ka qaxay dhulkaas dhul ku dowdhow oo kilomitir soo jira
ayay joogaan waana dayacan yihiin. waa adiga sheegeen aad ugu baaqasay inay soo gaaraan isleedihiin si degdega arrimaha hala soo gaaro maxay yihiin jecelahay runtii inaan jawaab degdega ka helo hawsha macsadaa dhacday dee dawlihiistii soo fedeen ciidamadiina waa adeeg bay ku kala jiraan ama weli maanaan dhexgelin oo maanaan kala durkin oo maantaan haysanayno sidii xabad joojinta loo sugi lahaa nabadda loo sugi lahaa wadaxaajoodna loogu gudbi lahaa hawshaas hadda meesha kaalaan doonayna inaan lagu soo gaaro. maleeshiya beeleedka deegaankaasi ku dagaalamay ee beelaha ah ee haatan aad la joogtaan baaqaad u diraysaan maxay tahayna wallahi iyaga waxaan ugu baaqanaa inay nabad qaataan dadkana maqlaan degmaankii hore ugu fullaatay dagaalkana ay joojiyaan cid walba waxaan ugu baaqanaa iyaga iyo dadka muslimka ah ee hawshaa kasoo reergelayada hawshaa maanta in la isugu tago oo meel la saaro. kaasi waxa uu ahaa gareed saleebaan buraale aadan oo ka mid odayaasha dhaqanka ee beelaha ay dirirtu ugu dhaxayso deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka sool waxa uu waramayay wariyahayga laascaanood cabdikariim walal. waagaaga dhegaystayaal haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii maalin kasta xilligan oo kale aad dhegaysan jirteen ee wicitaanka dhegaystaha waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo tibinaysa Sahra Cabdi Axmed. kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamiga ah ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC ayaa shalay soo gabagabeeyay kulankoodii ugu horreeyay magaalada Muqdisho ee ku yeeshaan muddo aad u dheer. haddaba kulankaasi ayaa markii uu soo gabagaboobay warmurtiyeed waxaa soo saaray 14 dawladood oo diblomaasiyiintooda iyo wasiiradooda arrimaha dibadda ee ka qayb galeen. 14 dawladood ayaa si gaar ah u daneeya arrimaha Soomaaliya waxa ayna ka mid yihiin 57 dal ee ku midoobay ururka OIC oo ah urur weynaha Islaamiga ee dalalka Islaamka ay leeyihiin. haddaba kulankaasi shalay warmurtiyeedka laga soo saaray dhinacyada ku shiray magaalada Muqdisho ayaa asalkiisa waxa uu ahaa iyada oo la bogaadiyay horumarka Soomaaliya ee ka gaartay waayadan dambe sida la sheegay dhinacyada iskaashiga dhexdeeda ah kobaca dhaqaalaha amniga iyo deganaanshiyaha sida lagu yiri warmurtiyeedkaasi. gabagabada shirkaasi ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si uu barnaamijka wicitaanka dhageystaha aniga iyo dhageystayaashaba marti noogu noqdo oo su'aalo uu uga jawaabo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad. sacaato wasiir balagu horantii barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da ku soo dhawow shirka communique-ga aad soo saarteen nooga waran. gobolku marka communique-gu waxa ugu muhiimsanaa inay qireen in Soomaaliya ay horumar dhan kasta gaartay ay mudan tahay in la tiro adduunkuna uu taas arko. waxay kaloo tilmaameen in oo ugu yeereen caalamka in Soomaaliya la garab istaago oo laga garab istaago dhisidda hay-adaha dawladnimo gargaar markii loo baahdo iyo meesha looga baahdo iyo maaragtay iyo amnigeeda oo ay iyada sugato insha allahu. waxay u mahadnaqeen ummadihii communique-ga wuxuu ka mahadnaqay dalalkii Soomaaliya garab istaagay oo dalalka meesha isugu yimid iyo dalal kale badan ka mid ah ay ka mid yihiin. waxayna eedeeyeen cambaareeyeen isqarxinta qolyahan isnidaamiye maaragtay argixisada ah. ka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa arrimihii ka soo baxay communique-ga arrimuhu u xusay. waayo adigoo mahadsan sacaato wasiir waxaa jiri doona dhageystayaal ku weydiin doona su'aalo isla shirka ku saabsan balse aniga haddaan ku weydiiyo amniga Soomaaliya ayada inay sugato ayaa la soo hadal qaadaa tiri waqtigan sidee ayaa Soomaaliya amnigeeda ayada ay u sugan kartaa oo la isugu haleyn karaa iyadoo ciidamo 20,000 ku dhadhow oo AMISOM ay joogaan macnaha nooca Soomaaliya la leeyahay amnigeeda inay sugato hadalkaas sidee buu u dhacaya qodobkaas? hadalku ma ahayn amnigeeda maanta Soomaalidu ha sugato waxay ahayd in la gaaro in amnigeeda ay Soomaalidu sugato. marka macnaheedu waxa weeyaan in waxay taageereen soo dhaweeyeen waxa la yiraahdo transitional maaragtay maxaa la yiraahdaa national security transitional plan ama kala guurka AMISOM iyo la guurayo AMISOM oo loo guurayo in amniga Soomaaliya ay gacanta ku wada dhigto ciidamo Soomaaliyeed
marka halkaas waxaas ayay ka hadleen taas ayay ka hadleen waa garta waa yahay dhegeystayaashaan jeclaan lahaa inaan waktiga ugu badan ayaga siiyo bal haddaan ku hormaro dhegeysto jooga magaalada muqdisho doctor shaafici soo dhawow magacaaga dhamaystir wasiirkii arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaad la hadlaysaa su-aashaada ka jawaabi doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiir caawad salaan qiimo badan ayaa hawada kusoo marina adiga iyo dhegeystayaasha kale qadka ku jira iyo sahra barnaamijka daadheynaysa iyo dhammaantii ugeys horwadeenadeeda wasiir waxaan rabay inaan ku weydiiyo laba su-aal oon isleeyahay waa muhiim waan rajeynaya insha allahu tacala haddii ladna iga jawaabi doonto su-aasha koowaad waxay tahay mar walba oo wasiir uu imaanayo aniga magaalada muqdisho aan ku noolahay dadka dhan badankood waa la xiraa waxaa dhacda markaa saameyn badan oo bulshada ku dhacda haddii baha waxbarasho ahaan lahayd hadday ahaan lahayd ganacsi hadday ahaan lahayd dadkii kale oo howlahooda caadiga qabsan lahaa marka maadaama inkastoo wasaaradaadu aysan ahayn amniga haddana ayadaa dabcan codsataa in shaqaday uqabsanayso marka u imaanayso ma ka fikirteen qorshe aan ka ahayn qof walba oo imaanaya in carrada loo xirxiro waa su-aasheeda koowaad oo kan ka duwan tusaale haddaan usoo qaato maanta oo kale aniga waxaan ahaa dadkii waxaan ku jiray jiirka laga xiray xataa waxaan arkay ambalaas la celinayo oo laleeyahay meeshaan mari maysid dadkii saarnaa iyo dadkiina dhulka taagnaa askartii aada u barinay baryo badan kabacdi askartu way daayeen oo ku mahadsan yihiin marka cadaadiskaas in dabcan ay bulshada ka baxda waa su-aasha koowaad oon qadaaqataa sheekh walaal waa mahadsan tahay salaanta iyo darinta waxa weeye horta adigaa qiray oo ambulansigii waa nahay markaa tiri ambulance baa la celiyey laakiin adigaa qiray ambulansigii in lasii daayey marka tusaale in loo soo qaato adamaba haboona mar haddii lasii daayey xiriirda dariiqyada walaalow waad og tahay waxaa jooga magaaladeen wadankeena niman isqarxiya marka martida noo imaanaysa waxay mudan tahay inaynu nabadgelyadooda si maaragtay taxadar badana aynu gelino mana aha wax maalin kasta dhaca marka waxaa isbarbar socda innaga oo mararka qaarkood dadka waktiga qaar ay maaragtay dariiqada la xiraya ka dhumiyaan iyo innaga oo rabna inaan magaalada muqdisho oo aad ku nooshahay caasimadii soomaaliya sumcadeeda iyo wanaageeda aanu adduunka tusno oo dadka inoo yimaada martida ay ku nabad galaan maadaama ay inoo baxday sumcad xumo ah wadanka wadan nabad ah maaha wadan la tegi karo maaha oo dalalkii ay ka baaqdaan marka waxaa kamid a wadaninimada in muwaadiniintu mararka qaarkood ay maaragtay inconvenience inay mararka qaarkood u qaataan xoogaa ciriiri ah wax weyn hadday yeelaynin noloshooda iyo xoriyadooda iyo maaragtay inay u qaataan si ay wadankooda u wanaajiyaan ama horumar mustaqbalka u gaaraan marka ambulance oo kaleeto oo qof jireen ama wada iyadu dee waa in xal loo helaa saadigu tilmaantayna askartii adamaantay way sii daayeen marka adigu waad u samri kartay dhowr saacadood oo maaragtay maxaad yahaa si aniga ila tahay walaalo laakiin waxaan kaloo kuu sheegayaa in mawduucaas madaxda ay ka hadasho oo ra-iisul wasaaruhu markuu shirinayo propagandaniga maaha arintuna wey markuu golaha wasiirada shirinayo uu ka hadlo see nabadgelyada usugnaa maxaa la yihahdaa loona yareeyaa in maaragtay maxaa la yihahdaa ay dadku dadweynuhu ay ciriiri dareemaan marka walaal saas weeye wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda marmar bay arrintaa la kulmaan maalin dhaweyd annagoo kuleh shaqo muhiima aeroboortka ayaa maxaa la yihahdaa protocolka chiefkiisa dadkeena dhan wuxuu soo dhaweeyey saacad maxaa yeelay sooma u geli karin maarata dariiqoo xiraa daraadeed maalin food kale inoo yimaadeen bay ahayd marka shaafici waa wataa inaan mararka qaarkood u dulqaadano way fiicnaan lahayd maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan ay dhacaysa dawladda idinka horreysa xataa tii kasii horreysa wakti wax soo jiitamaya ay tahay dadkuna shacabku ay dhib qabaan marka xataa waxaa dhacda xilliyada qaarkood madaxweynuhu baxaaya ama soo degaayo ama wufuud kaloo imaanayso intaba in la xiro arrinta ugu badan ayay kamid tahay dadka ay hadda ka cabanayaan marka ma jiraa qorshe aad rabtaan inaad kaga gudubtaan caqabadahaas oo hadda kadib si ka duwan sida hadda aad ula macaamilaysaan shacabka ay imaado ama xataa qidad oo hadda dawladda ay kasii fakeraysa ma jirta oo waxaas lagu bedeli karo zahra aniga hadda xamar waa kaaga dhawahay marka khasama inaan kugu raaco inay waayahan dambe aada usoo badanaysa ma soo badanin walaale marmar dhifay dhacdaa marka waana ka jawaabay sababahay u dhacdo iyo in ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha amniguba ay wadaan qorshe ah
in nabadgelyada magaaladana la sugo by the way magaalada nabadgelyadeeda in la sugo dadkao dhan bay wax taraysaa soomaaliya dhan bay wax taraysaa dadka xadar degan shacabka aynu ka hadlayna wax taraysa marka I think waa laga badbadiyaa marka qabashada arrintaa ku saabsan wasiir waa mahadsan tahay waa soo kooban insha allah su-aasha labaad waxay tahay wasiir waxaa jira wafdiyo kala duwan oo mar walba yimaado oo wasaaradaadu isoo dhaweyso aada uga shaqeysa oo ku mahadsan tihiin maxaan ku xasuusan doonaa tusaale maanta oo kale waa caqabado culeysyo dadkii waa lugeynayeen roob baa ku da-aya meel qoraxay ahayd gaadiid ma lahayn waa la dhibtooday legacy raadka aad reebi doontaan siduu noqon doonaa wasiir sanadkan tusaale bisha aan joogna hadda waa october sanadka dambe 2019 october shirkan iyo kii ka horreeyey dadkii kale nagu yimaada dabcan wufuudii ka socotay wadamada Ethiopia iyo Eritrea maxaan ku xasuusan doonaa oo isleedahay waxqabad ahaan waa la arki doonaa insha Allah tacaala sanad gudihiisa waad mahadsantahay sheekh su-aasha waa ka jawaabay oo dadka rafaadsanaa iyo waxaas iyo sii hore aynu xoogaa ku rafanay bay jawaabteedii ku jirtay marka maqaan hadee hooyinteeda haddana u baahnay inaan ka jawaabo waxaan marka isku koobayaa su-aashaada ah maxaa lagu xusanaya maxay faa'iido leedahay iyadana waxbaan ka tilmaamay waxaan ku idhi walaalow iyo dhegeystayaasha sharafta leh waxaan u sheegayaa soomaaliya waxaa laga bixiyey masawiraya inay tahay meel aan la imaan karin maalgashi lagu samaysan karin hayad aan samayn karin dadka soomaaliyeed baasaboorradooda aysan dalalka adduunka ku tegi karin maxaa yeelay nabadgelyo la-aan baa jirto waa isqarxinayaan marka waxyaabaha ugu weyn waxyaaba badan oo kaleeto faa'iidaha ay ka dhalan kartaa jirta oo dal caasimad dunida ku taala ah leh waa in wufuud imaan kartaa by the way anagu shirarka adduunkaan tagnaa Addis Ababa iyo markii AU ay ku kulmayso ama shirarka kulmayaan dariiqada waa la xiraa ma garanayso waa wadan nabadgelyada maamul wax kasta laakiin dariiqada waa loo xiraa madaxda imaanaysa iyo wufuudda imaanaysa saacado kooban maaha wax maalin kasta dhacaya marka yaynaan ka dhigin say tahay wax maalin kasta aynu ku noolnahay markaas anaguba xamar waxban ka jooga midda marka waxaa faa'iidada ka dhalan karta waxaa kamid a inaynu bedelo masawirka laga haysto dalkeena taas oo faa'iido shaashooya oo adiga iyo ummadda soomaaliyeed ba ule way aad baad umahadsantay sacaadatu wasiir jawaabtaada waafiga intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad barnaamijka oo su'aalo ay ku weydiinayaan dhegeystayaasha wasiirka ayaa waxa aanu ka wareysanaynaa war murtiyeedka ka soo baxay shalay kulankii labada cisho qaatay ee ka socday magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen 14 dawladood ee iyagu kamida kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamka ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC kulankaasi ayaa intiisa badan lagu bogaadiyay Soomaaliya sida la sheegay waqtigan horumar dhinacyo badan ay ka gaartay wahagaag dhageysto kale ayaa dhinaca gaalkacyo kaga jira khadka telefoonka soo dhawow walaalkiis wasiirku ku maqlaya Axmed Ciise Cawad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh saacadda wasiirka ku salaamaya magacayga waxaa leedahay Cabdiraxmaan Maxamed Dalmar waxaan joogaa magaalada gaalkacyo dunta Soomaaliya saacadda wasiir qofka marka asaga uu xushmeeyo baa la xushmeyn karaa ama marka asaga uu rabo inuu wax qabsado baa wax la qabsan kara baa wax loo qaban kara sana aaminsanay dawladaha maanta shirka ku qabsaday magaalada Muqdisho oo ay jeergareeyay dawladda Qatar iyo dawladda iyo dawladda Dubayda waxaan ognahay aniga iyo dhammaan dadka Soomaalida ayba inay yihiin dawladaha qaska ka wada gudaha dalka Soomaaliya waxaan ognahay dawladaha kala qaybinaya dawladda iyo maamul goboleedyada inay yihiin waxaan ognahay qaska ugu weyn oo dalka ka jira xataa dekado aan baarlamaanka iyo dawladdu aan saxinin inay iyagu gacanta ku haystaan wadanka iyo gudihiisa ka shaqaysanaya marka siyaasha saacad wasiir rabaa ku weydiiyo waxa weeye haddii dadkii ina caawinayay oo loo dhisay inay Soomaaliya caawiyaanba dadkii aan ka caawinaynay ay qayb ka yihiin oo waliba wajiyo kala gedisan leh seebay inoo caawin karaan iyagoo dantaasna ina kale oo waxa weeye inaga laftigeena iyo iyagana aan isku wanaagsaneen seebay inoo caawin karaan dadka danta khaaska ina kale waxay noo caawin karaan haddaan xataa hadalkaagii eedaynta dalalkaas ku saabsanaa aan sidiisa u qaato waxay noo caawin karaan inay naga daayaan dhibtaas marka inaan u sheegno inay naga daayaan dhibtaas ay noo yimaadaan ayna caawiyaan waxay kamid tahay waxyaabaha inaga walaalayaalow dhibka inta shirka marka uu furmay maxaa ugu oran weydeen walaalayaalow dhibka Soomaaliya ka jira qaybta ka tihiin waxaynu ka codsanaynaa walaalayaalow inaad naga daysaan maxaa intaa kaliya u oran weydeen qoladana xukuumadda saacadda wasiir adigu hadda ay nagala joogtay haddii walaalow maadaabana weydiiyey inaan niri in kale waxaa laga yaabaa inaan niri laakiin haddii xataa ay su-aasha saas tahay qasab maaha inaan fiiri
diblomaasiyadda walaalo waxaa kamid ah dalku anigu dad mas-uuliyaan nahay dalkoodana sidoo kaleeto dadkooda u jecel horta waa inaa intaas noo ogolaataan inaanaan ahayn dad alien oo maaragtay maris ka yimid oo wixii soomaaliya u daran ay dhibayso marka laakiin waxaa jira dariiq ay mas-uuliyiintu u maraan haddii ay xataa wax ka cabanayaan sida oo cabsaan mana aha waxyaabo maaragtay caalamka oo dhan la yidhaahdo kaalay oo dalhada saasaana niriya ma garanaysa waa jecelaha inaanu transparent ahaano idin iftiimino shaqada aan qabano laakiin waxaad ogaataan inaanu dalka u shaqeyno waad mahadsantaha wasiir waa filayaa dhegeystahaasi in su-aashaasi uu ka bogtay jawaabta aad siisay wasiir waxaa jirta in shirkan dowladda Djibouti ay qayb ka tahay markii ugu horreysana cabasho ayaa ka jirta sida wararka ay nagu soo gaarayeen ku saabsan arrinta gobolka markii la ammaanay oo Eritrea iyo Ethiopia heshiiskoodii la ammaanay in Djibouti ay dood ka keentay ku wajahan annaga dhul ayaa naga maqan in ma ahan oo keliya loo arko Eritrea in wax muhiima ay sameynayso xilligan amaba xilligan gobolka horumar weyn uu ka jiro marka maadaama Soomaaliyana iyo Djibouti laba wadan oo walaalo ah oo dhan walba isula ay yihiin taasi sideed u aragteen adinka zahra walaalay communique maanta soo baxay Djibouti maxaa la yidhahdaa raalli bay ka ahayd walaalaheen Djibouti waana joogeen wadanaan walaalanahay oo jecelnahay oo aanaan u baahnayn inaan ku abcadino saan isugu dhownahay qofna inay ahayn in loo sheego safiirkooda ayaa joogay safiir maaragtay aadan belel marka wixii kasoo baxayna communique raalli looga wadayahay bay buu ahaa magacayga waa Suud Colaad waxaa deganahay Minnesota gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis wasiirka waxaa weydiinayaa maadaama uu maaragtay shirkaas maanta uu Soomaaliya lagu soo gunaanaday oo warar saxaafadeed kasoo baxayna uu ahaa war saxaafadeed wasiirada ay oga hadleen muhiimadda ay leedahay inay Soomaaliya dib u soo laabanayso sumcadda noogu weyn annaga helayna in Soomaaliya shir lagu qabsan karay ahayd 2011 markii madaxweynaha Turkiga iyo madaxdiisii iyo UN-ka ninkii u weynaa markaas Ban Ki-moon ay tegi jireen maanta markuu shirka soo gabagaboobay fariin noocee ah wasiir ahaan u arkaysaa inuu adduunka u direeyo iyo dadka Soomaaliyeed maxaa faa'iido ugu jiraya maanta war saxaafadeed ka soo baxay iyo mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibadda waddankeena dhinacee u socotaa su-aashaasa weydiin lahaa bay sida kale shirka wuxuu ahaa shir heer sare ah maaragtay annagana hadaa shacabka Soomaaliyeedna aada ugu faraxnay waad mahadsan tahay siyaasadda arrimaha dibadda berintoo dhan waan ka sheekaysan karnaaye waxaan mooday shirku inuu ku saabsanaa maanta shirkii hadalkeenu ku saabsanaa shirkii maanta meesha ka dhacay haddaa rabtaa inaad siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ka hadlo waxaan u baahanahay wakti badan iyo maaragtay program aad ahayn baan u malaynaya hadda laakiin su-aal kale oo muhiim i weydiiyey walaal hadda ku mahadsan yahay sida uu soo dhaweeyey shirka iyo wixii kasoo baxay iyo muhiimadda uu Soomaaliya uleeyahay isagaaba tilmaamay marka haddaasana waa sheegay mar kalena waa ku celinaya dhammaadkii shirka muhiimad waxaa kasoo baxay messageka ama tilmaan maxaa la yihahdaa message kasoo baxay saarada kasoo baxday waxa weeye waxa waaye fariinta uu diraya kasoo baxday waxa weeye in Soomaaliya lagu qaban karo shir international inay tahay xamar meel maaragtay aamina oo nabadgelyo leh oo shir lagu qaban karo adduunku tegi karo heerka ugu sarreysa dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad horumar sameeyey kasoo kabtay dhibaatadii gaartay iyo dowlad la-aantii iyo burburkii iyo dagaalkii sokeeye ayna marti gelin karaan soona dhaweyn karaan wufuud dunida heerkay rabaan ha ahaadeen tirada rabaana ha ahaadeen dadka yimid maanta tiradooda waxay ahayd ilaa shalay 37 qof maganaysa oo mas-uuliyiin diblomaasiyiin iyo wax kasta leh marka si dhib yar ayaana loo maamulay imaanshahoodii iyo tegidoodii marka messageka ugu muhiimsan kaas ayuu ah waa garta marka muhiimadda ugu muhiimsan waktigan in Soomaaliya gudaheeda la tegi karo shirarka wadamada kale sida loogu qabtana loogu qaban karo horumarkeedana la taageero ayaa guud ahaan shirka uu ku saabsanaa shirka waxba ku saabsanaa waxaan idinka bilaabay maxaa la yihahdaa wixii kasoo baxay communique ku qoraa dhan waa idin sheegay laakiin su-aasha waxaan ka jawaabayay sida colaad inuu ahaa sida colaad su-aashiisii ahayd markii shirku dhammaaday messageka aad isleedihiin adigoo jir ahaan isleedahay shirku waa diray marka waxaan idhi wuxuu diray in kasoo communiquega saasaan u qaatay communiquegu waa message uu diray shirku waa warmurtiyeed kasoo baxay shirka iyo go-aamadiisa iyo wax laga hadlay laakiin
waxaan u qaatay inuu leeyahay maxaa ka mid ah masalan yani messageka uu dirayo marka taasaan ka jawaabaya waxa weeye in soomaaliya ay tahay meel nabada xamar inay tahay meel nabadoo shir oo haddii aan ahayn arrin la dhib yaraysto markaas arrin muhiim ay noo tahay anaga waayo aad baad umahadsan tahay sacaatu wasiir hal dhegeysta ayaa qadka ku jira oon jeclaan lahaa isaganaba inaan kusoo xiro soo dhawow muqdisho ayaad nagala soo hadlaysaa marka haddaad weydiin kartid uu ku jiraa wasiir axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo fursadan na siiyoon uga mahad celinaya isaga qudhiisa walaal waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo bulshada soomaaliyeed isdhex marayso ah arrinta la xiriirta jabuuti oo ah soomaaliya walaalkeeda koowaad in markaad fiiriso waa weydiina su-aasha jabuuti ku saabsan marka aad ay mahadsan tahay sahra marka wasiirku waa bogaadinayaa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay shaqada uu qabtay waxaan aaminsanahay inuu shaqo fiican hayo waa salaamaya waana bogaadinayaa kulley su-aashaas jawaabteedana waa ay dhaaftay no problem kiiskaasaan rabinaa waa jeclaan lahaa inaad ka dhegeysid idaacadda iyo barnaamijka berito insha allah aad baad umahadsan tahay waa mahadsan tahay walaal waayahay wasiir ugu dambeyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo soomaaliya maadaama aad sheegtay in waktigan fariimo fara badan kulankan in lagu qabto magaalada muqdisho uu dirayay ahmiyaddana ay tahay in wasaaradda dhinaca arrimaha dibadda soomaaliya in la kobciyo oo xiriirkii iskaashiga wadamada guud ahaan gobolka iyo caalamkaba aad soo celisaan haddana gudaha markii la fiiriyo dhinaca maamul goboleedyada ayaa dad badan ay su-aalo ka keenayaan maadaama siyaasadda arrimaha gudahana ay muhiim tahay marka bal haddaan ku weydiiyo maadaama ay su-aashaan ka baxsan tahay wixii barnaamijkan u qabtay haddana wasiir ayaa tahay siyaasadda arrimaha gudaha ee soomaaliya dowladda xaggee ayay damacsan tahay inay ku wajahdo sideese u wajahaysaan in xal loogu helo khilaafaadka gudaha waddanka walaalay zar waa su-aal fiican inkastoo saa tilmaantay ay ka baxsanayd mawduuca ka hadlaynay laakiinse markaan hadda kuu sheego madaxda dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka go-an in dadka soomaaliyeed maaragtay is-afgaradkooda isla shaqayntooda is-aaminkooda iyo isku kalsoonaantooda la soo celiyo la jiyo la adkeeyo meeshay ka maqan tahayna la soo celiyo meeshay ay jirtana la xoojiyo dabcan dadku markay siyaasadda sideedaba dabeecaddeeda waxaa kamid a in ay leedahay maaragtay tension ay leedahay inay leedahay maaragtay isqabad iyo mararka qaarkood isfaham waa uu jiro marka waa dabeecadda siyaasadda oo meel kastoo dunida kamid ay ka jirtaa waa one of the definitions of maaragtay maxaa la yihahdaa managing politics maganaysa ama marka siyaasaddu marka waxay maareysaa khilaafyadaas sidii la isugu soo dhaweyn lahaa madaxdeennuna taas waa ku hawlan yihiin dad badan waxay hadal hayaan macnaha isu dheelitirka siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha waxay noqonaysaa wax dheelitiran oo dowladda u muuqanayso inay waxqabadkeeda banaanka u yaala laakiin haddii tii gudaha uu khilaaf ka jiro sida hadda maamul goboleedyadii dowladda dhexoo kale aysan wada shaqaynayn waxna ay dhex maraynin tii arrimaha dibadda maxay taraysaa waa run wey waa su-aal meesha ku jirta anna waxaan ku yidhi madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu waxay ku hawlan yihiin sidii gudahana ay wax u hagaagi lahay maanta dha waxaynu ka hadlaynay nabadgelyada maxamed sidii loo sugi lahaa waddanka nabadgelyadiisa arrimaha dhaqaale arrimaha siyaasadeed waxaa kamid a oo lagu hawlan yahay oo ra-isul wasaaruhu horkacayaa wax la yihahdo inclusive politics waxa weye siyaasadda loo leeyahay oo macnaheedu tahay in ay tahay maaragtay loo dhan yahay xag fikrad ahaan iyo xag maaragtay lasalaad intaba marka waxaan anigu ku rajaweynahay in khilaafka ka dhexeeya ama aad mamadaysaan uu horta dabiici yahay oo haddana jiri karo soona mar kalena soo noqon karo xukuumadihii horeetana ay jirtay xukuumad danboo soo socdana ay jiri karto maxaa yeele waa dabeecadda siyaasadda weye bani aadamka inay wax ku kala duwanaadaan dabeedna mararka qaarkood isku qabtaan laakiin ujeedadu waxay soomaaliya soo dhaaftay waagii lagu kala go'i jiray lagu kala dhiman jiray ama la isku dagaali jiray wax siyaasad la xiriirto waa la isqabanaya haddana waa laga heshiin doonaa madaxweynaha ra-isul wasaarahana way ku mashquulsan yihiin ama dadaal bay wadaan ah
in la is afgarto. aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo barnaamijkan adigoo mashquula xataa inaad anigii dhegeystayaashaba su-aalo noogu jawaabto barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku saabsan. waa mahadsantahay guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo balse inta aanan ka bixin aan u mahadceliyo barnaamijka dhegeystayaasha igala qaybgalay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo marti igu ahaa ugana jawaabay su'aalo ku saabsan shirkii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho aniga iyo dhegeystayaashaba barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo. fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxayna socday barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja hase yeeshee aan ku hormarno magaalada Qaahira. waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku soo dhamaaday shir madaxeed lagaga hadlayay arrimaha dalka Suuriya. shirkaasi ay madaxdii ka qayb gashay waxa ay ku baaqeen in la bilaabo howlaha guddiga samaynta dastuurka dalkaasi iyo sidoo kale in masiirka madaxweyne Bashar al-Assad loo daayo shacabka Suuriya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuuni. shirkaasi oo gelinkii dambe ee shalay lagu soo gabagabeeyey dalka Turkiga ayaa la isku waafaqay dhismaha guddiga qaabeynaya dastuurka dalkaasi Suuriya ee lagu dhisay magaalada Geneva. guddigan oo kulan yeelanaya dhowaan ka hor inta uusan dhammaan sanadkani ayaa loo igmaday dib u qaabeynta dastuurka waddankaasi iyo in dalkaasi loo diyaariyo doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. madaxda ka qayb gashay shirkaasi ayaa kala ah madaxweynayaasha dalalka Turkiga, Ruushka, Faransiiska, hogaamiyaha dalka Germany iyo xubno kale oo ka socda dalalka qaramada midoobay u xil saartay xiisadaha dalkaasi Suuriya. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay shirkaasi ayaa si adag u sheegay masiirka madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad inay u taalo shacabka dalkaasi. Erdogan oo hadal ka jeediyey gabagabada shirka Istanbul ayaa sheegay rabitaanka shacabka reer Suuriya gudaha iyo dibadda inay xadidayso masiirka madaxweyne Bashar al-Assad. madaxda iyo wakiilada ka qayb galay shirkaasi ayaa si adag ugu baaqay in dib loogu celiyo qaxootiga reer Suuriya dalkooda iyo in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin oo hadal ka jeediyey shirkaasi ayaa dhinaciisa si adag ugu sheegay muhiimadda ay leedahay in ciidamada Turkiga ay isaga baxaan dhulka ka caagan hubka ee magaalada Idlib. laakiin madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa dhinaciisa muujiyey inuu diidan yahay howlgal kasta oo milatari ah oo ka dhan ah ciidamada xukuumadda Dimashq iyo maleeshiyada ka dagaalanta Idlib sababtoo ah buu yiri waa arrimo sababi kara tiro badan oo barakacyaal ah. shir madaxeedkan ka dhacay magaalada Istanbul ee looga hadlay xiisada dalka Suuriya waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilo ka socday dalalka Sacuudi Arabiya iyo Jordan oo ayagu qayb ka ah dalalka loo igmaday xiisada Suuriya oo uu dhisay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi. haddaba Maxamed Cabbaas Sheekh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida uu u arko muhiimadda shirkaasi uu leeyahay dalkaasi Suuriya. shirka arrimaha Suuriya ee ka dhacay magaalada Istanbul waxaa la dhihi karaa waa mid ahmiyad gaar ah u leh dadka reer Suuriya iyo caalamka oo dhan sababtoo ah dagaalada qaramada midoobay iyo dalalka daneeya arrimaha Suuriya ayaa u muuqday kuwo meel fiican maraya arrimaha Suuriya. warmasiyeedka ka soo baxay shirkaas waxaa la dhihi karaa waa mid dhinacyada isku diidan siyaasadda Suuriya oo iskaga soo dhawaadeen sidii hore islamarkaana ay aqbaleen dagaalada Suuriya in lagu dhameeyo wadaxadan. sidoo kale walaal Xuseen dagaalka ka soo baxay nuxurkiisa ayaa ahaa mid loogu soo horjeedo in dagaalada ay sii socdaan islamarkaasina khilaafaadka dowladda Suuriya iyo mucaaradka lagu dhameeyo xanaan siyaasadeed oo wax qaybsi ah. ugu dambeyn waxaa aaminsanahay in madaxda shirkaasi ay isku raaceen in la dardargeliyo guddi ka shaqeeya dastuurka iyo in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah taasoo go-aan ka gaaraysa jeedista iyo bixista madaxweynaha
hadda talada haysta qodob kale ee muhiimka ah ayaa waxaa la dhigi karaa madaxda ku shira Istanbul inay meel ugu soo wareejeysteen dagaalka dhanka ah kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya dalka Syria. Shirkani ayaa ku soo deegmaya xilli dowladda Turkiga ay ku hanjabtay inay qaadayso howlgallo milatari oo ka dhan ah maleeshiyada kooxda Kurdiska ay ka dagaalanta gudaha dalkaasi Suuriya oo xukuumadda Ankara ay ku sifaysay inay tahay koox argagixiso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. waa hagaag dhegaystayaal waryahayaga xuseen saxnuuni aad buu mahadsan yahay haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali idaaja waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da dhegaystayaal waaxdii u dambaysay qarnigii 19aad ayaa soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay shisheeye dhowr ah ayaa inta saanyaday kala qaybsaday oo kala suntaday markaas baa qayb walba waxaa loogu abtiliyey qoladii saamiga u heshay dhulka soomaalida ee faransiiska dhulka soomaalida ee talyaaniga dhulka soomaalida ee ingiriiska iyo dhulka soomaalida ee xabashida saban xumaagaas ka hor soomaalidu ma kala qoqobnayn oo inkastoo dawlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn haddana waa iska warqabtay isdhexmarkeedu ma koobnayn weligeedna way ogeyd dadyawa kale ee geeska afrika ku dhaqan inay isaga sokayso taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor doonyaha hindigu markay berbere badeecada ay sidaan ku rogaan ayay ganacsatada soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fog geyn jireen iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay sidaas oo kale waxaa iyaduna jirtay waddo ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada luuq soo geli jirtay halkaasoo haddana marar badan ay safruhu baraawe iyo badweynta hindiya uga sii gudbi jireen noloshaas xorta ahi markay calowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu soodimaha u kala samaysteen soomaalidu ma qaayibina waa ka dhiidhiday mar ay dhiidhigaas addin ku muujiso iyo af iyo aftahannimo mar intay adeegsato ay isku guubaabiso ba' wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareensiiso inkastoo aan naari meel qabow lahayn haddana xoogagii gumaysigu soomaalida waa u kala dabacsanaayeen markii la isbarbar dhigana waxaa ugu naxariis daraa xabashida oo waayadaas boqor miladakii labaad uu u talin jiray taariikhda dhowi siday xusaysana 1884 ilaa 85 baarliin shirkii ay ku qabsadeen iyo heshiiskii ka soo baxay ee reer yurub ay afrika ku qaybsadeen ayaa boqor miladakh ka saami qaatay isaga oo loo oggolaaday inuu hantiyo in weyn oo ka mid ah galbeedka dhulka soomaalida maalintaas buu askartiisii soomaalida ku fasaxay markaas bay ku markadeen dil iyo xadhig dhac iyo cadaadis maalinla ah intaba boqor miladakh wuxuu haddiiba reer miyigii soomaalida ku soo rogay cashuur silloon oo dhowr jaad ah markii hore waxay ahayd cashuur aan tiro go'an lahayn marka xigana cashuur aan xoolaha nooli u kala socnayn oo mar ay geel ku qaataan mar kale ay lo' ku qaataan mar saddexaadna ay ari ku qaataan waxay kaloo ahayd cashuur nooceeda laba amankaago oo xubnaha qoyska qof qof looga qaado isla markaasna aan rasiid lahayn cashuur aan iyada oo kale cidina u soo joogin oo neefkii kolba suuqa loo soo safarsadaa uu askariga iyo soomaaligii keensaday kala bar u ahaa taas yaabkeeduna wuxuu malaha kaa ba'aya markaad ogaato in talisyadii askartaa laga soo dili jiray iyo dhulkii ay ka howlgelayeen ay aad u kala fogaayeen sidaas awgeedna mushaarkoodu soomaalida ayuu dusha ka saaraa iyada oo si walboo ay kaga heli kareen ay u bannaanayd haddiise boqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badani u bannaanaayeen soomaalidii reer miyiga ahayd hal wax oo keliya ayaa u bannaanaa
intay carari karaan inay cararaan oo qura ayaa u furayd maxaa yeelay hub iyo saanad ay wax isaga rabaan laguma ogeyn inay helaanna looma oggolayn kolkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhowaataba shan geedi ka guureen kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan waddooyinkii ay soo mari jireen sida la wariyena degmooyinkii qaar baaba si kama dambays ah askartaas ugu daldaayey ugana hayaamay ka awow ceeshii ay xoolaha ka sugan jireen iyo carshintii ay daaqsan jireenba iyada oo saxariirtaas lagu sugan yahay oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono iyo in la geediyi doono aan cidina sheegi karin ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa banka jigjiga ku kulmay wadaad gabya ahaayo oo maxamed guure la oran jiray iyo nin magaciisa cabdi lagu sheegay gaartaasna kabaha u ilanaa sadanadii hobyood ee mudug inuu u sadcaalo hilaadda waa horaantii 1912 sadanadaas oo xarunteedu ay magaalada ahaydna waxaa markaa ka taliya suldaan cali keenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabbihii kadib isagu kursigii talada salka dhigay oo maxamed guure ayaa kolkaa waxaa ku soo dhacday in suldaanka uu qayradhaan u sii dhiibo isaga oo ay la ahayd inuu u soo heelin karo wuxuu u malaynayay inuu u soo diri karo ciidan soomaaliyeed oo askartaas halka iyo hoyaadka u diiday dalkooda uga saara dhulsaraadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaanna ku dirqiya maalintaas buu wadaadku tiriyey gabay fariimeed tiiraanyo miirana oo laga ogaan karo jeefaafili'idii boqor miridikh iyo ciidankiisii ay soomaalida kula dhaqmi jireen ee ay nolosha ugu dacareeyeen aw maxamed oo cabdi ku halqabsanaya ayaa tixda ku bilaabaya arar gaabanoo salaan suldaan uu ugu talagalay dabadeedna wuxuu kowkabinayaa hadday yihiin galbeedka soomaalida degta hoogga ay ciidamada boqorku ku faraan wuxuu yidhi cabdiyow carrawdaye haddii aadan calooliyoobin caafimaad qab nololeed haddaad cali suldaan gaadho calaykum assalaam bay ku tiri culimmadiinnii dheh dabadeedna caad baxoo u sheeg caawasaan nahay ee dadkeennii galbeed calowgelyo cadowgii loo heerdhe anna ciidan doonkii rag iyo eegalyaan ahay dheh gaalada caweertale wixii calaftiyaan hayno cajab iyo siyaab loo xunbay uga cashuurtaa dheh caantay ninkii iibsadaa caanad buu bixindhe ciroolaha da-oobay iyo dhashaan caday la leefsiinin codcodadii caanaha nuweel uga cabbaynaa dheh calool looma siiyee dirqay nagu cabiidsheen dheh wixii uu gumaysigu gayeysiiyey isaga oo sii faahfaahinaya ayuu oo maxamed guure wuxuu xusayaa foolxumooyin markaa ka hor aan soomaalida la maqashiin karin haatanse lagu dirqiyey sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysata iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan intuu ku xejiyo qaxa joogtada ah ee ay ku jiraan iyo ciidan la'aanta lagu haadsanayo ayuu suldaanka ku beerdulucsanayaa inuu ka baqaayo kollay addoonnimo qaatee in diinta islaamka laga saaro tu kalena la oggolaysiiyo wuxuu kaloo suldaanka ku wargelinayaa in gumaadka iyo cadaadiska askarta meelikh ay kordheen kadib markii sayid maxamed uu jigjiga qabsaday isaga oo u tafaxaynaa markaas xoraynta imaaraddii islaamiga ahayd ee harar wuxuu yidhi ictibaar adduunniman arkoo caajisaan nahay dhee casho noolba naagaha yagay cududda haystaan dhee cajiinkaan u karinaa kolkay calalis doonaan dheh nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saadaa dheh carradii ilaah waascashay nagu ciriiriyeen dheh carar baan ahayn meesha iyo ciiddii ramadaan dheh askar xoog la niman waayey oo cil qabaan nahay dheh cooflaha sidiisaan sharciga uga cabsoonnaa dheh cabiid qaadannay ee waxaan ka baqay inaan cagsoonnaa dheh annagoo calaacali asii weliba ceegaagna oo caarinoo ladanuhuu caliyey sheekhii dheh dabadeedna cidibteed go'gooy nama caqiibayn dheh
cidaaday ka yeeleen waxay cagidi taabeende mooggana col bay gelinhayeen caymadkii harayde haddaad caaqibayn reer tolkaa cabay suldaankii dhe waa la hubaa in cabdigabaygaas uu suldaan cali u mariyey ha yeeshee codsigii uu xambaarsanaa ma uu fulin iskumana uu dayin maxaa yeelay rag iyo hub uu qolo kale ku gargaaraa gacantiisa kuma ay jirin banka jigsiga iyo hobyana dhul dhan baa u dhexeeya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo waa hagaag dhegaystayaal axmed faarax cali idaajaynu kaga soo gudbanayo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha intayna gabagabada idaacadda gaadhin aan jamaal axmed cismaan oo haatan nagu soo biiray jamaal waxaan filayaa si weyn baad ula socotay ciyaaro waaweyn baa socday bal dhankii ciyaaraha wararka ugu dambeeya jamaal shirwac aad baad mahadsan tahay kulan waxaa socday el clasico loo yaqaan oo kooxaha barcelona real madrid ay wada dheelaan kaas ayaa hadda goordhow soo gabagaboomi doona gegada naadiga barcelona iyuuna ka dhacaya muddo 11 sano kadib ayaa waxaa labada kooxood ay dheelayaan iyagoo aanay midna dheelaynin Ronaldo ama Messi Barcelona ayaa hadda 4 gool waxay ku hogaaminaysaa Real Madrid 4 gool iyo gool ayayna Real Madrid markaas lagu hogaaminayaa afartaasi gool saddex kamid ah waxa dhaliyay Suarez gool koowaadna waxa ku furay Philippe Coutinho kulmo kale ayaa dhacay Manchester United gool iyo waxba ayay hadda ku hogaaminaysaa Everton naadiga Arsenal Crystal Palace 2-2 iyo horyaalka markaasi Ingiriiska sala dhaaf waayeen Chelsea 4 gool waxba ay kaga adkaatay naadiga Burnley waad mahadsantahay Cabdixakiin waayahay Jamaal intaas dabcan waa iyadoo faahfaahsan ciyaarahaasna ciyaaraha barnaamijyada socod ku dhageysan doontaan aan soo qabto heestii Marwo iyo fanaanka Cabdi Jabbaar Al-Khaliji iyadana u dambeyn doonta idaacadda iyadii idin la socodsiinay aniga Maxamed Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo soo saarayna Bashiir Abik والله شقي متدها بدل نحن بوسناي لك ما الله لك نعاوس المولوهات والله شقي متدها بدل نحن بوسناي لك ما الله لك نعاوس المولوهات عذبنا المروي وحنا كنتاي مويه موبي عذبنا المروي وحنا كنتاي ومويدا مسكرير كي مشدق انت تقول ميريا وحكتو معان يا ملاشنا الى ميلاتي مسكريك iyo mashadagaanka ku dulmeeraya waxa toobaan iyo malaabshina ila midaatay adiguna macaan waxa laga taayooyida adiguna macaan waxa laga taayooyida في مسألة شعير مرغدا قبي مهشدا كالقعن على معاذن قارا مدد عليه مالبيك في مسألة شعير مرغدا قبي مهشدا كالقعن